Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamij live ah oon hadda idiin sameynayo cryptocurrency live aan trade-gareynaya tusaale website-kan waxaa la yidhaha Dextrain. Dexka screen-ka waxaa laga fiiriyaa tokens-ka hadda soo baxaya ee suuqa soo galay saacadihii ugu dambeeyey ama daqiiqadihii ugu dambeeyey. Hadda haddaan isla fiirino shaashadan aad ujeedaan waxaa la yidhaahdaa Dextrain. Dextrain waa website-ka ugu caalamisan ee markasta laga fiiriyo waxyaabaha update-ka ah. Refresh aan dhahaya, okay. Markasta waa inaad Solana aad doorataa top traderska ayaad dhigeysaa ama top pairska ugu sareeya. Topka waxaan oo dhan ayaa mataqaanaa ugu sareeya hadda arkeysaa. Kabacdi waxaad dooraneysaa Solana inaad markasta ay ku saaran tahay waaye ecosystem-keeda oo ku dhisan ayaa muhiim ah. Marka hadda waxaa ku jira trade ayaan galay wax yar ka hor. Marka hadda waxaan kutusaa last hours waxyaabihii soo baxay ugu cusbaa. Kuwaan hadda waxay soo baxeen ujeedin dhamaantood hadda dhow ay soo wada baxeen 9 hours 1 hours. Hadda kanaan ku jiraa. Waxaa la yiraahdaa tokenka oo cusub yahay 9 saacadood ka hor ayuu soo baxay. Okay. Hadda wallet-keyga aan ku tusaa igu xiran. Wallet-ka waa kana National Digital Asset aa lahaa coin-kan. Waxaan ku galay 5 euro camal aan ku galay. Lacagta saa ujeedin aan ka sameeyey $91 ayaan hadda maray. Hadda waxaan rajeynaa wax kadib inaan ka baxo. Hoos weli wuu soo dhacaa. Hadda saan hoos u soo dhacaa laakiin hoos aan kasoo galay meesha ugu sidaan kasoo galay. Sidaa darteed marka adiga haddaad rabtid inaad ka faa'iideysatid waa inaad sidaan u trade gareysaa. Cashiradan cashiro kasii muhiimsan oo kasii fiican waxaa waaye waa idiin soo bandhigi doonaa. Wallet-keyga hadda ujeedaa 91 ayay mareysaa price-ka. Hadda kan price-kiisa wuxuu maraa 11 hoos maraa. Mataqaanaa ani waxaan kasoo galay asoo maraayo meesha ugu hooseydo markaas oo bilaabanaya ayaan soo galay. Waxaan ku jiraa 5 hour aan ku jiraa hadda. Already haddii uu xiro 100-ka waa ka baxaa. Marka waxaan ku bilaabay $5 ayaan ku bilaabay. Sidaa darteed haddaad rabtid inaad ka faa'iideysatid cashiradan la soco. Markasta YouTube-ka subscribe saar asxaabtada la wadaag. Waa kana akoonka 9 hours uu jiraa. Volume-kiisa market cap-kiisa waa 1 billion. Sidoo kale waxaa soo galnaa Telegram live waxaa soo galnaa marka qaarkood asxaabta oo soo sheegaa asxaabta qaar ay ka faa'iideysto maybe hadda inaad adiga cusub tahay qofka cusub Telegram-ka ka soo galo live qofkaan soo gelaynaa ka faa'iideysto si live ah asxaabta ay uga faa'iideysanaysaa. Hadda weli waxaa ku jirnaa Dexka ayaan ku jirnaa. Waxaan fiirineynaa qof walba intuu lacag ka sameeyey hoos ayaad ka fiirinaysaa top traderska meesha hadda ku jiro. Qofka wallet-kiisa ayaa ku dhufanaysaa kabacdi waxaa arkeysaa mataqaanaa waxaa arkeysaa lacagaha intuu ka sameeyey dadka qaarkood intay ku khasaareen waxaasoo dhan arkeysaa. Hadda qofkaan oo kale oo ku dhufanaynaa intuu ka sameeyey halkan ayaad daawanaysaa. Waxay ku goynaysaa markaas Solana-skan waxaa arkeysaa qofka balance-giisa portfolio-giisa dhammaan waxyaabahaas oo dhan aad arki kartaa. Qofka hata waxaad arki kartaa qofka akoonkiisa inta lacag ugu jirto inta lacag uu ka sameeyey waxyaabahaas oo dhan aad arki kartaa. Sidaa markaa aad ula socotid waxyaabahaas oo dhan marka waa inaad research badan sameysaa. Maalin walba wax cusub ayaad baranaysaa. Qof kasta marka waxaa arkeysaa inta portfolio uu leeyahay inta lacag uu ka sameeyey inta jeer oo trade sameeyey maalinkii meeqas jeer uu trade qaatay Solana imise lacag ugu jirto. Solana-skanka qof walba lacagta ugu jirto arki kartaa laakiin qofku yaa ma ogaan kartid. Marka alaas ku xuntaa marka trade walba gelis marka waxaa ka fiirinaysaa inaad scam iska ilaalinaysaa. Meesha liquidity-ga waa inay markasta qunful saaran tahay. Pirates-ka markaa gelaysid ay saliska ay ka badan yihiin. Hadda kan oo kale 50% waxaa badan pirates-ka ayaa badan. Wana aad u fiicnaa marka aniga galayay saliska waxay marayeen 10% ayay marayeen
halka ay marayeen pirateska 70%. Marka already hadda dad badan ka wada baxay sida dareemayo. Liquidity horta markaas inay xiran tahay snabreska yani aysan dhammayn 5% inta ku jirto. Marka inaad geshid kartid adresskaas ayaad koobiyeynaysaa, adreskiisa midkaas dhexe ayaad koobiyeynaysaa. Kabacdi waxaad tegeysaa wallet-kaaga. Waxaan ku tusaa sida ugu fudud yani oo ugu macquulsan aad yani wallet-kaaga ugu xiri kartid. Wallet-kaaga extension-kaad kusoo xiro. Kabacdi meesha sirjigaa tag, akoonka ku dhufo, swap dheh, dhag. Lacagta aad ku swap gareynaysa gelinaysaa dhag. Sidaasaa trade ugu jirtaa hadda waa kaasa. Waxaan fiirinaynaa hadda 21 aan ku eegaynaa. 21 waxaan ku eegnaa waxaan fiirinaynaa 33 ayuu ku siinayaa yani lacag qiimaha u dhiman like 23,000 oo tokens waaye. Tokenkaas u dhigantaa. Marka waxaa leedahay swap now ayaan leedahay. Sidaas ayaad akoonka lacagta yani trade-ka ugu jirtaa lacagta ku samaynaysaa. Hadhowna confirm aa leedahay iska xiraysaa markaas close aa dhehaysaa. Just saas u fududa. Macnaha meeshaan ma jirto dee transaction iyo lacag kala xawilayay wax waqti badan la sugayay ma jirto. Waa adiga iyo mataqaanaa fahamkaaga iyo qaabkaada mataqaanaa u aragtid ay ku xirantaa. Sidaas waxaa jiro mid kaloo la yiraahdo website kaloo waxaa jiro website badan yihiin TMG mid lahna wuu jiraa. Laakiin aniga kanaan kasi jeclaa Dexscreen-ka. Dexscreen-ka wax walba waadix ayuu ku tusaa. Laakiin haddaad fahantid TMG oo kale waa more professional asne. Laakiin Dexscreen-ka yani qof kastoo yani bilow ah u fiican siduu u fahmo. Laakiin Dexscreen-ka waxyaabo badan ayuu ku tusaa. Markaasni asigana waa idin tusi doonaa. Hadda waxaan dhan aan tataabanayo dhan waxaa waaye saacadii ugu dambeeyay 24 hours ugu dambeeyay 6 hours ugu dambeeyay tokenska soo baxay. Tokenskani si fudud ayaa lagu samayn karaa. Waxaan dhan hadda waa u jeediin dad ayaa sameeyay, qof adigoo kale soo sameeyay. Yani ma u baahno waxyaabo yani lacag haddaa haysatid Solana adaa sameynaysid hawada soo gelinay tokenki. Marka hadda kan waxaa la dhahaa X ayaa la dhahaa. Adreskiisa koobiyeyne waxaa fiirinaynaa marka inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay. Waxaa ku fiirinaynaa website la yiraahdo Rookcheck. Rookcheck wuxuu kaa caawinaa tokenkan inaad geli kartid iyo inaad geli karin. Wuxuu ku tusaa liquidity-giisa intuu yahay, market cap-kiisa intuu yahay, good miya ama danger ma fiican yahay, buyerska iyo sellerska yaa badan oo ku tusinaa. Marka waxyaabahan oo dhan waxaa waaye xogta aad ka heli kartid halkan waaye markaste. Marka ila soco asxaabtaada u share garee. Si fudud ayaad kiribto uga cilbixaysaa insha Allah haddii Ilaahay idmo. Hadda 99% liquidity-giisa waa locked waa kan. Laakiin wuxuu ku xun yahay analyze riskiskiisa waa 400. Aniga ma galo 400 ama 100 mukiya markuu zero analyze diyahan galaa. Hadda kan waa kii ku sheegay X-ki waaye, X tokenka oo hadda soo baxay waaye. Wuxuu jiraa I think inuu jiro 9 hour inuu jiro malaynaa tokenkan saan qiyaasaya. Ilama wanaagsan hadda kan oo kale. Laakiin good ayuu hadda kuu sheegaa kan oo kale. Marka markasta bahalku fiican ayuu hadda market cap-kiisa zero waa kan ujeedaa. يعني waxyaabo badan oo ku tusinaa ma fahanti. Price-kiisa wuxuu maraa 0.003 ayuu maraa. Waa waxaan dhamayn hal senti. Magarad. Marka marka maalin kasta markaad meeshan soo geshid waxyaabo cusub aad baranaysaa. Maalin kasta shalay waxaad fahansanid maanta wax ka sii fahan. Yani maalin kasta khibrad ayaa ku kordhaya. Adiga waa la soo galaa, waa la fiiriyaa. Tokenada waxay kala duwan yihiin, isbarbar dhig mid walba. يعني market cap-kiisa, volume-kiisa, يعني liquidity-giisa, price-kiisa amount-iga lagu galayo haddii oo yar yahay waa iska ilaalinaysaa. Waxyaabo badan ayaa jiro markasta aad arki kartid ama qof weydii kartid. Hadda calankaas hadduu u saaran yahay boqolkiiba 70 hadduu u saaran yahay faraha ka qaadaysaa calan gaduudka hadduu ku arkaysid. Okay. Waxaan isla fiirinaynaa GMG-ga. Hadda GMG-ga waa kana. GMG-ga waa kana waa more professional website ah. Wuxuu leeyahay boodad badan ayaa ku xiran.
Boodadkaas badan marka waxay kaa caawinayaan boodadkaas badan marka waxay kaa caawinayaan inaad yacni akoonkii tokenkii yacni riskigiisa uu kaa yareeyo yacni ay kaa caawinayaan. Marka waxaa jirto snap riskiisa xataa kan banaankaad ka arkaysaa sida screenka camal maahan uma kala kalsoona waxaa jirto hadda kanoo kale wuxuu shaqaysan yahay hal daqiiqa ayuu abuuran yahay kanoo kale oo hadda intaan heliin la soo geliyey yacni waa scam scamna ma dhihi karno laakiin waxaa fiican tokenka 6 hour 4 hour ugu yaraan adi 4 hour 6 hour inuu jiro yacni tokenka aad lacag ka samayn rabtid yacni inaa yacni ku kalsoonaan kartid oo dhowr qofood la yaqaan ay soo galeen oo kale. Sidoo kale waxaa la socotaa Twitterka, Telegramka, newsyada la soco dadka caanka ah influencerska yacni waxyaabaha ay soo share gareynayaan, waxyaabaha ay ka hadlayaan, waxyaabaha ay xiiseynayaan tokenada yacni la sheegayo kale tokenada lasoo launch gareyn doono waa inaa isha ku haysaa. Hadhow meeshaan imaanee tokenkii yacni lagu sheegay ayaad halkan ka arkaysaa kabacdi waa fiirinaysaa tokenka haduu macquul kula noqdo waxaa ku tuuraya $5 $10 $20 ku tuure 200 300 banaanka waa ka qaadanaysa. Don't worry marka aad u fududahay marka sidaa darteed Telegramka iyo mataqaanaa X-ka bahalka la yiraahdo Twitterka waa inaa aad ula socotaa dadka influencerska ah waxyaabaha ay soo bandhigaan. Hadda Trump intii tokenkiisa laga faa'iideysan ka hor uu soo bandhigay 4 saacadood ka hor ayuu soo geliyey inuu launch gareyn doono tokenkiisa. Hadda kanoo kale snap riskiisa waxa weeyaan 10 ayay maraysaa meeshaas 70 ayay maraysaa. Okay ma fiicno marka waa inuu ahaadaa eber snap risk. Marka Donald Trump wuxuu sameeyey wuu soo launch gareeyey kabacdi waa laga faa'iideystay. Hadda tokenka aan ku jiro waa kanaa kor u soo kacay waxyaabay ka hor waa isla fiirinayna kaa ku jiray ugu dambeyn hadda 94 91 waaye waan ka baxayaa. Casharka halkaan aan ku ekeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Markasta ku xirnaaw halkaan subscribe noo saar.